Dawladda Maraykanka ayaa ku degdegaysa in macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan tiknoolajiyadda quwadda korantada ee nukliyeerka inay la wadaagto wadanka Sacuudiga sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saareen aqalka wakiiladu. Guddigan aqalka uu xisbiga dimuqraadigu hogaamiyo ayaa bilaabay baaritaan ku aadan walaaca laga qabo in aqalka cad uu boqortooyada Sacuudiga ka dhiso warshad quwadda korantada ka dhalisa nukliyeer. dadka sirtan dusiyay ayaa guddiga u sheegay in arrintaasi ay waxyeeleyn karto bariga dhexe isla markaana ay siyaadinayso samaysashada nukliyeerka. shirkado lala xiriiriyay madaxweynaha ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay dabada ka riixayaan wareejinta macluumaadkaasi. warbixinta guddiga dusha kala socota ee aqalka wakiilada ayaa waxa ay xustay in baaritaanku uu yahay mid aad muhiim u ah maadaama ay u muuqato inay socoto qorshaha ay dawladda wadankaasi Maraykanku ay macluumaad xasaasi ah oo tiknoolajiyadda nukliyeerka ku saabsan ay kula wadaagayso dawladda wadankaasi Sacuudiga. madaxweyne Trump ayaa aqalka cad kula kulmay qolyaha quwadda nukliyeerka sameeya 12kii bishii Febraayo si uu uga hadlo warshado loo dhisayo dalal ku yaala bariga dhexe oo uu Sacuudigu ka mid yahay. wiilka uu sadega u yahay madaxweyne Trump oo la taliyo u ah aqalka cad ayaa lagu wadaa inuu bishan safar ku gaala bixiyo wadamo ku yaala bariga dhexe. dawladda wadanka Sacuudiga ayaa waxa ay sheegtay inay u baahan tahay quwadda korantada ee nukliyeerka laga dhaliyo si ay wax uga qabato baahida sii kordhaysa ee korantada. balse walaaca ayaa waxaa qayb ka ciyaaraya in wadankaasi Iiraan oo ay Sacuudiga ishayaan inay samaysato tiknoolajiyad dhanka nukliyeerka sida ay ku waramayaan warbaahinta wadankaasi Maraykanku. wadahadallo hore oo ku saabsanaa tiknoolajiyadda nukliyeerka Maraykanka ayaa waxa ay dhammaadeen kadib markii dawladda Sacuudigu ay diiday inay gasho heshiis ku saabsan in tiknoolajiyaddan aan hub ahaan loo adeegsan doonin. balse waxaa laga yaabaa in maamulka madaxweyne Trump uusan daruuri u arkin heshiiska noocaasa. dadka arrintan dhaliishan ayaa sheegaya in haddii dawladda Sacuudiga la siiyo tiknoolajiyadda nukliyeerka ee Maraykanka ay arrintaasi horseedi karto loolan halisa oo dhanka hubka nukliyeerka oo ka dhaca gobolka oo aan deganayn. Saciid Axmed Tamriise, wararka telefishinka caalamiga ah Star.